waa maxay sababta uu qalrisaasku u yahay aaladda kaliya ee aan marnaba laga maarmayn xataa xilliga tiknoolajiyadu sareyso laga soo bilaabo ardayga koowaad ee dugsiga ilaa injineerka dhisaya daaraha dhaadheer ma qiyaasi karta adduunka aan qalin lahayn ma jiri lahaayeen naqshadaha dhismaha casriga ah ee dunida maanta waxaynu muuqaalkan kaga hadlaynaa safarka cajiibka ah ee qalrisaasku soo maray laga soo bilaabo markii laga helay godad madow oo Ingiriiska ku yaal ilaa warshadaha casriga ah ee maanta fadlan daawade intaynan muuqaalka u gudagelin subscribe noo dheh channelka like na saar muuqaalka mahadsanid safarka qalinka ee aan maanta fududeysanayno wuxuu dhab ahaan bilowday sanadii 1564 dalka Ingiriiska gaar ahaan tuulo la yiraahdo Prowdale sheekadu waxay leedahay duufaan aad u xooggan ayaa soo riday geed weyn taasoo muujisay maado madow oo dhalaalaysa oo xididada hoostooda ku jirtay dadkii deegaanku markay arkeen waxay u haysteen inay tahay dhuxul dhagax laakiin markay isku dayeen inay gubaan dhab ahaan way guban weyday waxay ogaadeen inay tahay maado aad u jilicsan oo calaamad madow reebaysa maadadaas oo markii dambe la ogaaday inay tahay graphite waxa markii hore isticmaali jiray xoolo dhaqatada deegaanka si ay idaha ugu calaamadiyaan sababtoo ah waxay u muuqatay sidii rasaas ama lead dadku waxay u bixiyeen magaca Blumbago ama Black Lead halkaas ayuu ka yimid magaca lead pencil ama qalin rasaaska ilaa maanta inkastoo qalinka uusan marnaba rasaas ku jirin graphite-ka Prowdale wuxuu ahaa kii ugu tayada badnaa ee caalamka laga helo boqortooyada Ingiriiskana waxay u isticmaali jirtay inay ku dhuuxdo gudaha madaafiicda si ay u noqdaan kuwa siman oo ridada ka fogaada waxay ahayd sir qaran laakiin sanadii 1795 waxaa masraxa soo galay Nicolas Chascos-Conte oo ahaa sarkaal ka tirsan ciidanka Faransiiska waqtigaas Faransiisku wuxuu dagaal kula jiray Ingiriiska graphite-kiina waa la goostay Conte wuxuu helay fikrad caalami ah wuxuu isku daray graphite buda ah iyo dhoobada loo yaqaan kalay isku darkaas wuxuu keenay in la xakameeyo adkaanta qalinka kadibna isku darkii wuxuu u gooyay sidii ula yaryar wuxuuna ku dhexriday foorno kuleyl badan tani waxa ka dhashay nidaamka gradiska ee maanta naqaano sida HB 2B iyo 4H kuwani waa darajooyinka lagu cabiro sida qalin rasaasku u madow yahay ama u adag yahay waxa lagu kala saaraa laba xaraf oo muhiim ah H oo ah hardness ama adayga qalinka iyo B oo ah blackness ama madoobaanta qalinka haddaba 4H qadiisu waa mid aad u adag haddana khafiif ah macnaheedu xarafka H wuxuu u taagan yahay hard marba haddii lambarku uu weynaado sida 4H 6H macnaheedu qalinku waa ka sii adag yahay muuqaal ahaan wuxuu dhigaa xariiq aad u khafiif ah oo midabkiisu cawl yahay ama gray waxaana loo isticmaalaa sawirada farsamada ama technical drawing-ka naqshadaha dhismayaasha iyo meelaha u baahan xariiqyo aad u saxan oo aan si fudud u masaxmi karin tan labaad oo ah HB waa dhexdhexaad macnaheedu waa isku jirka xarafka H oo ah hard iyo xarafka B oo ah black waa qalinka ugu caansan adduunka muuqaal ahaan ma aha mid aad u madow mana aha mid aad u khafiif ah waa mid meel dhexdhexaad ah waxaana loo isticmaalaa qoraalada buugaagta sida dugsiyada xafiisyada iyo marka la bilaabayo sawir gacmeed ama sketch-ka wali waxaynu ku jirnaa gradiska qalin rasaaska 2B oo ah madow jilicsan xarafka B wuxuu u taagan yahay black marba haddii lambarka uu kordho sida 2B 4B 6B qalinku uu ka sii madow yahay uuna ka sii jilicsan yahay muuqaal ahaan wuxuu dhigaa xariiq madow oo qaro leh aadna u jilicsan marka warqadda lagu qorayo waxaana loo isticmaalaa sawir gacmeedyada gaar ahaan marka la sameynayo hooska ama shading-ka iyo meelaha la rabo inuu madowga ka muuqdo haddaba aan u dhundegno warshadaha casriga ah geedi socodku wuxuu ka bilaabmaa in graphite-ka iyo dhoobada lagu qaso biyo ilaa ay ka noqdaan dhoobo madow oo siman budadaas waxaa la mariyaa mashiin weyn oo loo yaqaan extruder kaasoo ka soo saaraya leadka isagoo u eg xariiqyo dhuuban oo aad u dhaadheer leadkaas wali waa jilicsan yahay markaasna waxaa la geliyaa foorno kuleelkeedu gaarayo ilaa 2000 digrii oo Fahrenheit kuleelkaas kadib leadku wuxuu noqdaa mid adag oo diyaar ah laakiin intaas kuma eka waxaa lagu dhexridaa saliid kulul ama waxi si uu qalinku markaad warqadda ku dhex qorayso ama aad ku dhex kaxaynayso uu u noqdo mid smooth ah oo aan warqadda waxyeello u geysan hadda oo u nimaadna qoriga
inta badan waxaa la isticmaalaa geedka cedar. qalinka looma sameeyo sidii qori la dhex muday, balse waxaa loo isticmaalaa farsamo loo yaqaano sandwich. looxan fidsan ayaa la qaadayaa, waxaan lagu dhex qodaa 8 tiixin ama 8 grooves oo aad u dhuuban. liidkii ayaa la dhex dhigaa, loox kale oo isla jeexan ayaa xabo korka looga dhijiyaa, kadibna mashiin ayaa u gooya qaabka lix-goosoodka ah ama hexagonal. haddaba maxay u doorteen lix-goosoodka? sababtoo ah haddii uu wareeg ahaan lahaa miiska ayuu ka dhici lahaa, laakiin lix-goosoodku wuxuu sahlayaa inuu miisku ku nagaado, qabashada gacantana ay ku raaxaysato. qaybta ugu dambaysa ee qalinka waa tirtiraha. ma ogtahay in ka hor sanadkii 1858 dadku ay isticmaali jireen rooti qoyan si ay qoraalada u tirtiraan? Hayben Liebman ayaa helay fikradda ah in tirtiraha lagu dhijiyo dabada qalinka isagoo isticmaalaya birta yar ee loo yaqaano ferrule. halkan waxaa ku jira 3 xaqiiqo oo laga yaabo inaadan horay u maqlin. tan koobaad, qalinku celcelis ahaan wuxuu qori karaa 45,000 oo eray. tan labaadna, midabka yelowga ama jaalaha ee qalamada inta badan lagu rinjiyeeyo wuxuu ka soo bilaabmay sanadii 1890kii si loo muujiyo in graphite-ka laga keenay dalka Shiinaha oo ahaa kii ugu tayada sareeyay, waayo jaaluhu waa midabka boqortooyada Shiinaha. tan ugu dambaysa, qalinku wuxuu wax ku qori karaa meel kasta, biyaha hoostooda, meelaha qabowga daran, iyo xitaa meelaha aan lahayn cufis jiidadka ama isbeyska. ugu dambayn, qalinku wuxuu ahaa saaxiibka aamusan ee maskaxda ugu weyn caalamka, laga soo bilaabo naqshado dhisme ilaa suugaanta dunida bedeshay. qalinku wuxuu ahaa aaladda koowaad. inkastoo aan ku jirno xilli digital ah, haddana qalin rasaasku weli waa aaladda ugu awoodda badan ee qof kasta oo hal abuur leh uu ka soo bilaabay fikradiisa. marka xigta aad qalinka gacanta ku qabato, xasuuso inuu soo maray safar 100 sano ah iyo farsamo aad u sareysa oo ku dhex qarsoon qorigaas yar. haddii aad ka heshay muuqaalka, fadlan like saar, subscribe noo dheh channelka si aad u aragto sheekooyin kale oo la yaab leh.